bismillaahi raxmaani raxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa maalin axada 14 bisha juun sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah diyaaradda drone ee qaaliga ah oo ay sheegeen xisbullah inay kasoo rideen israa'iil wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan marxalad kale oo adag miyay gelayaan maxaa loogu baahday wafdiga dowladda qatar mar kale maanta inay ku laabtaan magaalada tehraan oo caasimadda dalka iiraan ah waa maxay waxa kaga daran hubka nuclearka ee dowladda iiraan oo israa'iil ay dareemayso waqti xaadirkan warbixin dheer oo laga qoray ayaan eegi doonaa diyaaradda drone ee lagu arkay dhanka iyo xuduudda israa'iil ee lubnaan iyo wasiiradii Smotrich iyo Ben-Gvir go'aanka adag ee ay soo saareen qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah taala soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale marcadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ayaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowga kulanka la doonayo in dalalka gaashaanbuurta NATO ay ku yeeshaan sanadkan dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara shirkan ayaa wuxuu dhici doonaa 7 ilaa 8 bisha Juulaay ee soo socota waxaana lagu warramayaa durbaba in laga shaqeynayo sidii loo yareyn lahaa zaxmadda inkastoo Ankara Istanbul bay ka saxmad badan tahay oo magaalada Istanbul magaalo ganacsi ayaaba aad u zaxmad badan haddana durbaba Turkiga wuxuu bilaabay diyaar garow aad u xoogan oo arrintaani ku saabsan dowladda Kenya haddii aan eegnana dalka qaba xanuunka albanismka loo yaqaano ayaa lagu warramayaa in hadda loo sameynayo tijaabo caafimaad oo dhanka kansarka oo waliba lacag la'aan sida mas'uuliyiinta dowladda ay sheegeen maalintii shalay oo sabti ahayd ayaa waxa lagu warramayaa in arrintan ay ku dhawaaqeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya waxaa dadkani loo sameyn doonaa baaritaan guud oo xanuunka kansarka ah dhanka iyo xisbullah haddii aan eegno waxay soo bandhigeen muuqaal muujinaya inay soo rideen diyaarad 10 milyan oo dollarka Mareykanka joogta diyaaraddan oo ah nooca Israa'iil ay soo saarta ee Heron loo yaqaano waa drones xisbiga waxay sheegeen mid ka mid ah gantaaladooda in ay ku soo rideen diyaaraddan waxaana ay soo bandhigeen muuqaalka muujinaya xilli diyaaradda isku dayeysay in ay howlo sahana ay ka samayso gudaha Lubnaan tani waxay ka dhigan tahay raadaarada xisbiga ay haystaan inay suuragal tahay inay ogaan karayaan qaar ka mid ah diyaaradaha drone ee Israa'iil macluumaadiyadaasi waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada fadlan ha hilmaamin inaad like saarto muuqaalka waad mahadsan tahay markan waxaan eegaynaa Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka maanta oo xada waxa qorshuhu u yahay in la saxiixo heshiiska u dhaxeeya dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Iiraan inkastoo heshiiskaasi uu yahay mid isfahama oo uusan ahayn mid dhameystiran haddana waxaa soo baxaya caqabado la sheegay inay sababi karayaan dib u dhac ku yimaada heshiiskaasi in qaab elektrooniga loo saxiixdo ama si weji ka weji ah wadahadallada u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Iiraan waxay galayaan marxaladii ugu dambeysay waxaana warbaahinta gobolka ay baahinaysaa wafdi ka socda dowladda Qatar maanta mar kale inay u safreen magaalada Tehraan oo caasimadda dalka Iiraan ah wafdigan ayaa hore waxay u tageen isla magaaladan ujeedada maanta socdaalkoodan waxaa lagu sheegay inay tahay inay dhameystiraan heshiis la filayo inuu soo afjaro dagaalka socday in ka badan 3 bilood oo u dhaxeeya Mareykanka, Iiraan iyo Israa'iil in wafdi ka socda dowladda Qatar ay maanta mar kale ay ku laabtaan magaalada Tehraan oo caasimadda dalka Iiraan ah waxa ka dhalanaya laba su'aal oo muhiim ah maxaa keenay wafdigan mar kale in Tehraan loo diro maxaana dib u dhigaya saxiixitaanka heshiiskii hore loo qorsheeyay in si elektrooniga loo kala saxiixdo si arrintaasi loo fahmo waa in marka hore la eego halka wadahadalladu ay marayaan bilihii la soo dhaafay labada dhinac waxay ka gudbeen inta badan qodobadii ugu adkaa ee la xiriiray xabajoojinta sida dib u furidda marinbiyoodka Hormuz fududeynta cunaqabataynta iyo in dowladda Iiraan loo ogolaado shidaalkeeda inay dhoofin karayso taasi waxay keentay in hogaamiyaasha Mareykanka iyo Pakistan ay muujiyaan kalsooni weyn oo ay ku sheegeen in heshiiska aad loogu dhow yahay in la saxiixo waatii madaxweyne Trump uu sheegay in heshiiskan la saxiixi doono axadda maanta ah halka ra'iisul wasaaraha dowladda Pakistan uu sheegay 24 saac soo socda in heshiiska la saxiixi doono taas oo ka dhigan maanta oo axada iyo sidoo kale maalinta biri oo isniin ah laakiin xukuumadda Tehran waxay muujinaysaa taxadar ka duwan rajada ay muujiyeen Islamabad iyo Washington
waxaana jira caqabado sababay in mas-uuliyiinta dowladda qatar maanta mar kale ay dib ay ugu laabtaan magaalada tehraan waxaanay u badan tahay culays ka yimid dhanka iyo dowladda iiraan iyo shaki ay ka qabto heshiiskan in qalinka lagu duugo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda iiraan cabaas carakji ayaa hore u sheegay in heshiiska suuragal ay tahay si elektroniga in loo saxiixo maalmaha soo socda inkastoo waqti rasmi uusan sheegin haddana maamulka tehraan ma aysan bixin ogolaanshiyo kama dambaysa taasina waxay keentay in afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda war kale uu soo saaro waxaadna moodaa dhanka diblomaasiyadda iyo saraakiisha ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan inay arrimahan ku kala aragtiyo duwan yihiin saraakiisha ciidamada ilaalada kacaanka waxaad moodaa inay dhalladooda u jabsan tahay oo ay doonayaan inta badan waxyaabaha ay guusha u arkaan dhankooda mar walba in la marsiiyo halka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubnaha siyaasiyiinta ay ka shaqaynayaan in dhanka diblomaasiyadda yacni wax walba laga eego hadallada la isticmaalayna ugu yaraan la diblomaasiyeeyo halkaas marka waxaa ka dhalanaya baahida loo qabo mar kale wafdiga dowladda qatar in dib loogu celiyo magaalada tehraan maadaama su-aale ay ka yimaadeen heshiiskii qatar horey ay kaga shaqaysay ee sababay isbeddelka ugu weyn ee ah rajada ay maraykanka iyo bakistan ka qabeen in heshiiska qalinka lagu duugi karo haddii wax walba ay ahaan lahaayeen sida jawaabta ay dowladda iiraan u bixisay sax ahaanshiyaha hadalka madaxweyne trumpna uu yahay mid dhab ah looma baahdeen wafdiga dowladda qatar mar kale inay dib ay ugu laabtaan magaalada tehraan laakiin marka dhexdhexaadiyuhu uu mar kale u safro caasimadda dhinac ka mid a dhinacyada wadahadalka weli shaki ayaa jira waxaana inta badan la tilmaamayaa in qodobada ugu muhiimsan ee weli u baahan go-aanka siyaasadeed ee heerka u sarreeya ay yihiin kuwa la xidhiidha nucleerka iyo sidoo kale dhaqaalaha dowladda iiraan sidaa daraaddeed safarkan wuxuu muujinayaa in heshiisku aad uu ugu dhow yahay gebagabo balse weli aanan la gaarin heerka ansixinta kama dambaysa hadalkaas oo ka soo bixi karaya dhanka saraakiisha ciidanka iyo hoggaanka ugu sarreeya dowladda iiraan waxaa sidoo kale laga yaabaa xukuumadda dooxa sidoo kale inay doonayso in damaanad ay ka hesho tehraan ka hor inta aanan la gudagelin saxiixa kama dambaysta ah qodobada la faafiyey ayaa waxaa ka mid ah in lagu saleeyay 60 maalmood oo xabajoojin ah dib u furidda marinka hormus fududaynta dhoofinta shidaalka dowladda iiraan iyo helidda qayb ka mid a dhaqaalaha tehraan hase yeeshee gudaha iiraan weli waxaa jira kooxo siyaasadeed iyo xubno kale oo sida la sheegay ka soo horjeeda heshiiska kuwaasoo ka cabsi qaba in maraykanka uu helayo faa'iidooyin aad u badan halka dowladda iiraanna ay bixinayso tanaasulaad dheeraad ah waana sababta aan idiin dhahay shalay way adkaan doontaa dhinacyadan haddii sidaan xitaa ay ku heshiiyaan in la isisii aamino heshiiskana uu noqdo mid si rasmi u dhaqangala waxyaabaha adkaynaya heshiiskana waxaa qayb ka ah in midba midka kale uu shaki ka qabo sidoo kalena uu u arko in isaga uu yahay kan khasaaray kan kalena uu yahay kan guulaysanaya maraykanku wuxuu doonayaa dib in loo furo marinka hormus si loo dejiyo suuqyada tamarta iyo sidoo kale in la abuuro jawi cusub oo lagu wada hadli karayo loona gudbo barnaamijka nucleerka iiraanna mudnaanta ugu weyn waxay siinaysaa in la yareeyo cunaqabataynta dib loo soo nooleeyo dakhligii shidaalka ay ka heli jirtay iyo in lasoo afjiro cadaadiska dhaqaale ee ka dhashay dagaalka iyo xanibaadaha dekadaheeda sidaa daraaddeed waxaa hadda socda ma ahan wada hadallo cusub oo bilow ah balse waa dadaalkii ugu dambeeyey oo la doonayo wax walba in lagu soo gebagabeeyo dhinacyadana maadaama midba midka kale damiin uu ka yahay si gaar ahaaneed bakistan iyo qatar waxay doonayaan in wax kama dambaysa qalinka ay ku duugaan oo ay ogolaadaan arrin ay ugu yaraan xakamayn karayaan haddii sheekada isbedesho dhinaca kalena sarkaal sare oo ka tirsanaa saraakiishii israa'il wuxuu aaminsan yahay in heshiiskan marka la eego gacanta ugu sarraysa dowladda iiraan ay leedahay maadaama barnaamijka nucleerka aan laga wada hadlin sidaasi oo kalena guulo waaweyn ay gaareen iiraaniyiinta marka la eego dhanka wada hadalka adigu maxay kula tahay yaa guulaystay aragtidaada nala wadaag laysar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay warbixin sanadlaha uu soo saaray macadka daraasaadka dadka yahuudda ah ayaa muujinaysa in walaaca ugu weyn ee israa'iiliyiinta maanta inuusan ahayn barnaamijka nucleerka ee iiraan balse uu yahay kala qaybsanaanta gudaha oo sii xoogaysanaysa waxaana arrintan ciwaan looga dhigay israa'iil waxay wajahaysaa khatar ka weyn hubka nucleerka waana kala qaybsanaanta gudaha maxaa yeelay midnimadii ayaad moodaa inay sii kala dhantaalmayso sida warbixintan uu ku baahiyay telefishinka aljaziira oo ka soo xiganaya macadka warbixintan daabacay sida lagu sheegay warbixinta inta badan israa'iiliyiinta waxay aaminsan yihiin in xoogagga iskacabintii xamaas ay sii ahaan doonaan awood saamayn ku leh gudaha marinka ghaza xitaa marka dagaalka uu idlaado dad badan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ka niyajabeen sida warbixinta lagu sheegay qorshihii uu soo jeediyey madaxweyne trump inuusan horseedin hubka dhigidda xoogagga iskacabinta ama burburinta awooddii military inkastoo la gaaray xabajoojin iyo sii dayn dhanka maxaabiista ah natiijada warbixinta
waxay muujinaysaa in 55% israa'iiliyiinta inay u arkaan kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo bulshada dhexdeeda inay tahay khatarta ugu weyn ee Israa'iil ay wajahayso marka laga yimaado hubka nuclear-ka. xitaa waxay yiraahdeen nuclear-kaba khatartan ayaa inooga daran. taasi waxay si weyn uga sarreysaa sida la sheegay kuwa u arka barnaamijka nuclear-ka ee dowladda Iiraan in khatarta koowaad uu yahay, kuwaasoo 23 kaliya boqolkiiba gaaraya. 55 iyo 23 farqi weyn ayaa u dhexeeya. sidoo kale warbixintu waxay tilmaamtay in ku dhawaad 60% Israa'iiliyiinta aysan meesha ka saarin suuragalnimada rabshado gudaha ka dhici karaya ama xitaa dhiig daata inuu dhex mari karayo qaybaha kala duwan ee bulshada Israa'iil maadaama kala qaybsamayn, taasoo muujinaysa cabsida sii kordhaysa ee laga qabo isku dhac gudaha ah iyo dagaal sukeeyo oo gudaha Israa'iil ka dhici karaya. waa sida warbixinta lagu sheegay. dhinaca kale waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid kalsoonida mustaqbalka ee Israa'iiliyiinta. ku dhawaad kala bar Israa'iiliyiinta ayaa waxaa lagu warramayaa inaysan diinta ku adkayn, awaateen ay aaminsan yihiin sidoo kalena aysan ku qanacsanayn in Israa'iil mustaqbalka ay noqon doonto meesha ugu wanaagsan uguna ammaansan carruurtooda ama awlaadooda. arrinta adeega militariga weli waxaa la sheegaa inuu yahay mid si weyn ay bulshada ugu kala qaybsan yihiin. inkastoo 80% shacabka ay taageersan yihiin in dhammaan qaybaha bulshada si siman ay uga qayb qaataan ka mid noqoshada ciidanka, haddana 79% Yahuudda aadka uga adag diinta loo yaqaano Haraadim waxaa la sheegay inay ka soo horjeedaan in ciidanka ay ku biiraan dhallinyaradooda, xitaa haddii loo sameeyo nidaamyo gaar ah. tani waxay sii xoojisay khilaafka u dhexeeya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo kuwa diinta ku adag ee Haraadim loo yaqaano. warbixinta sidoo kale waxay muujinaysaa in bulshada Haraadim ay heshay heerka ugu hooseeya ee isku soo dhawaanshaha bulshada marka loo eego kooxaha kale ee Israa'iil, taasoo ka tarjumaysa farqiga bulsho, mid dhaqan iyo kan siyaasadeed oo sii ballaaranaya. dhanka wanaagsan, heerka guud ee rajada bulshada ayaa kor u kacay, balse kala qaybsanaanta siyaasadeed ayaa mid aad u weyn ah. taageerayaasha garabka midig ayaa muujiyay rajo aad u sareysa, halka taageerayaasha garabka bidix ay muujinayaan heerka rajada inay aad u hooseyso, taas oo la diiwaan geliyo sanadihii ugu dambeeyay. warbixinta sidoo kale waxaa lagu xusay in kalsoonida shacabka ee hogaanka militari ee Israa'iil inay gaartay heer aanan horey loo arag, iyadoo 82% shacabka ay muujiyeen kalsooni ku aadan ciidanka kadib dagaaladii iyo xiisadihii gobolka ka dhacay. laakiin ciidanka dhexdooda waxaa la sheegay inay rajabeel ay ku dhacday, saaxiibadood oo badanna ay waayeen inta dagaalka uu socday. taasina waxaa kaloo ay keentay cabsida ay ka qabeen daalka tirada badan inuu horseedo guuldarro ciidanka soo gaarta haddii dagaalla kale ay ka qayb galaan. aragtidaada nala wadaag, lagsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. 2 diyaaradood oo nooca diyaaradaha droniska ayaa lagu warramayaa axadda maanta ah in ay ku qarxeen gobolka loo yaqaano Galilee galbeed oo waqooyiga Israa'iila, meel u dhow xadka Lubnaan, sida saraakiisha militariga Israa'iil ay sheegeen. diyaaradan ayaa la sheegay inay hawada ay soo gashay wax yar kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu kulan dhanka amniga uu la qaatay saraakiil kala duwan si looga arrinsado xaaladaha gobolka iyo heshiiska la filayo in Mareykanka iyo Iiraan ay gaaraan, maadaama Israa'iil ay si weyn uga niyajabsan tahay heshiiskaasi. wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich wuxuu ku baaqay marka in laga jawaabo weerarka diyaaradda drone si degdegana loo duqeeyo magaalada Beirut oo caasimadda Lubnaan ah. wuxuu sheegay in duqeynta diyaaradaha drone lagu bartilmaamaysaday waqooyiga Israa'iil inay tijaabo u yihiin siyaasadda loo yaqaano xeerka daahiya, sidoo hadalka u dhiga, taasoo ku salaysan in si xoogan looga arguto. Smotrich marka wuxuu ku baaqayaa dhismayaal badan oo ku yaala xaafadda daahiya oo magaalada Beirut ah gebi ahaanba dhulka in lala simo, iyadoo diyaaradan drone oo kaliya laga aarsanayo. sidoo kale wasiirka amniga ee Israa'iil Tamir Ben Gavir waxa uu taagan yahay xaafadda daahiya ee magaalada Beirut waa inay gariirtaa. mar kasta oo weerar laga soo qaado Lubnaan wuxuu yiri waa in dhulka lala simaa. waxa kale oo uu sheegay in Netanyahu uu ka dalban doono in drone kasta oo ka timaada dhanka iyo Lubnaan looga jawaabo weerar gantaalla ah oo aad u culus, isagoo ku adkaystay in Israa'iil aysan aqbali doonin siyaasadda xakameynta ee ay door bidayso si buuxda inay u burburiso khatar ka timaada dhinaca kale. yacni wuxuu taagan yahay waa inaan awood adeegsanaa, wax naga gala heshiiska ma lahan, waana in haddii nalagu soo tuuro hal dhagax aan ku bedelnaa 100 bambo. dhinaca kalena mas-uuliyiinta Israa'iil ee dhanka amniga waxay taagan yihiin heshiis haddii uu dhex maro Iiraan iyo Mareykanka, arrintaasi waxay khatar ku noqon doontaa amniga guud ahaan ee Israa'iil. saraakiishan ayaa inta badan la hadlay kanaalka 12aad oo Israa'iil laga leeyahay. dhinaca kalena dowladda Iiraan waxay maalin midnimo qaran ah
ay ka dhigtay juun 12 maalin dagaalkii socday sanadkii lasoo dhaafay. haddana bishii juun ayaa lagu guda jiraa 2026 sanad kadib. madaxweynaha dowladda iiraan wuxuu yidhi waa maalin midnimo qaran ah dagaalkii 12 maalin ee bishii juun sanadkii 2025 marka la eego dagaalkaasoo israa'iil si kadis ugu qaaday iiraan xilli wadahadalla ay socdeen. hadda madaxweynaha wuxuu saxiixay fariintan oo dadka shacabka loo dirayo iyadoo loo dabaaldegayo sanad guuradii kasoo wareegatay markii iiraaniyiinta sida ay sheegeen ay ka adkaadeen israa'iil intii uu socday dagaalkii 12 maalin. dagaalkaas oo maraykanka iyo israa'iil oo wadajira si toos ugu qaadeen xarumo kala duwan 12 maalin ayuu socday dagaalka. markii dambena waxaa lagu qasbanaaday wadahadal. haddana bishii february ee sanadkan 2026 dagaal ayaa bilowday kaasoo ka xooganaa ee kii 12 maalin. ku dhowaad 40 maalin ayuu dagaalkaasi socday. ugu dambeyn haddana waxaa lagu qasbanaaday in la wada hadlo, taasoo ilaa iminka socota. bishii abril 8 ayaa wax walba dhinaca kale ay u rogmeen markii dowladda Pakistan sheekada ay soo gashay. Turkiga, Masar iyo Qatar ayaa dadaal badan bixinaya, xitaa dowladda Sacuudiga. dowladda Pakistan dhowr jeer ayay isku dayday kulamo in la yeesho si arrintan loo soo gabagabeeyo, laakiin marba marka ka dambeeya labada dhinac waqti ayay iibsanayeen. haddana waxaa la joogaa heerkii gabagabada ee wadahadalka, inkastoo heshiiska hadda la doonayo weli uu yahay mid isfaham ah oo 60 maalin oo kale la doonayo in wax walba lagu dhammaystiro kadibna loo gudbo marxaladda kama dambaysta ah. guud ahaan caalamka waxyaabaha ka soo kordhay insha Allah barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. aad baad u mahadsan tahay. nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.